Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waa kulankeenii xigay iyo kulamo kaloo badan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Sidii caadiga ahayd waxaa noo soo socday taxanaha barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad ee aan idinkugu soo gudbinaynay af Soomaali qof walba meel walba oo jooga oo Soomaali ahna uu fahmi karo. Waxaad naga daawanaysaa boggeena Halbeeg SOS Empire. Haddaadan ka tirsaneyn kusoo biir soo dhawow fadlan. caawan waxaan rabnaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo in aan baranno mowduuc yar oo aad u fudud qofka markuu ku cusub yahayna aad u dhib badan laakiin haddii la isku dayo la baran karo waana meesha ugu muhiimsan ee marka la joogo suuqan sarifka lacagaha qalaad platformyadu way kala duwan yihiin noocyada la isticmaalo laakiin anaga waxaan isticmaalnaa MetaTrader 4 oo ah nooca keliya ee anaga aan suuqan markii aan soo taxliilino oo aan ku soo qanacno lacagaha aan ka ganacsano aan imaano kadibna si aan u galno trade ama aan u furno boos cusub ayaan waxaan isticmaalnaa nooca loo yaqaano MetaTrader 4 insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan idinla wadaagi doonaa caawa sida qof ku cusub suuqan oo ula soo degi lahaa MetaTrader 4 isagoo si dhib yar ah weliba ugu soo dejinaya mobilkiisa qofka iPhone isticmaala waa gooni qofka nooca mobilyada loo yaqaano mobilada Android-ka ahna waa system kaleeto oo gooni ah mar walba aad taqaanid meesha aad kaga soo degi kartid apps-ka ee mobilkaaga aniga ahaan waxaan isticmaalaa nooca Android-ka loo yaqaano waxaan idinla soo share gareynayaa mobilkayga si aan idin tuso qaabka aad ula soo degi kartid si fudud mobilkaaga hadduu Allah awood u leeyahay yiraahdo okay aan bilaabano marka shaashada mobilka waa kana hortiina ayay ka muuqataa shaashada mobilka waxaan tegaynaa qaybta Play Store-ka ee aan kala soo degno mar walba markii aan u baahano Android-ka waxaad tegaysaa qaybta Play Store-ka sida idin sheegay waxaan isticmaalaa Android Play Store-ka ayaan kala soo degaa aniga wixii markaas aan u baahanahay adigana hadda iPhone wadatid App Store jiro saan rajeynayo iyo programyada kale ee mobilada kale ee leeyihiin ee wax lagala soo degto kadib ku dhufo hal mar Play Store-ka markuu kuu soo kaco hadduu Ilaahay yiraahdo waxaad samayn doontaa magaca waxaa ku qoraysaa MT4 na waa ku qori kartaa MetaTrader 4 na waa ku qori doontaa labada nooc baan kula wadaagaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo nooca MT4-ka ugu horeeya waxaa qoraysaa M iyo T iyo 4 saas markaa u qortid click ayaa siinaysaa asaga ugu horeeya kuu soo baxayo sida shaashada hortaada ka muuqata aniga hadda wuu ii degsan yahay oo open ayuu iiga baahan yahay laakiin waxaan rabaa si qof cusub aan isticmaalin MetaTrader 4-ka si uu u fahmo in aan tirtiro marka hore okay MetaTrader 4-ka markii aan tago shaashadeeda ayaan kusoo noqonayaa qaybta MetaTrader 4-ka oo ii yaalo si aan uga saaro mobilkayga sababtoo waxaan rabaa inaan idinla wadaago qaabka u soo degsan lahayd sidii aad ugu suubsan lahayd akoon cusub iyo sidoo kaleetaba wixii markaasi kaleeto loo baahdo aad samayn lahayd good hadda mobilkeena wuu ka baxay qaybtii Play Store-ka ayaan kusoo laabanayaa waa ujeeda hadda waxaa ii saaran install haddii qaab noocan marka MT4-ka uu kugu soo bixi waayo qoraalka caadiga ah u soo qor tag isla meeshii hadda ku qor MetaTrader 4 asaaba kuu soo qabanaya waa kaas forex trading qaabkan markuu kugu soo baxo hadduu Ilaahay yiraahdo waxaad samayn doontaa install ayaad leedahay ama igu soo deji mobilkayga si aan u isticmaalo xaqiiqdii ma dhib badno waa wax aad u fudud laakiin loo baahan yahay qofka in uu fahmo wadooyinkii emailihii uu mari lahaa good hadda waa ay noo soo degaysaa waan sugaynaa wax yaroo aan badnayn hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna waxaan u sii dhaadhici doonaa gudaha si aan u fahanno sida loo isticmaalo good uu soo degay qaybtaas open ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa openka markaad ku dhufato sidan oo kaleeto ayuu kuugu soo muuqan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka horeyse uu soo muuqan doono asaga ayaa si toos ah ama automatic ah kuugu samayn doona akoon laakiin anaga uma baahnin kaasi asaga uu samayn doono waxaan rabnaa akoon anaga aan samaysanay ama aan naqaano ama brokerada kala duwan noocyadooda mid alla midkii markaasi adiga aad ku qanacsan tahay ee la rabo
inaad xubin ka noqoto. Okay, waxaad tegaysaa qaybtaasi codeska ay ku qoran tahay kor xariijimaha isdul yaalla, kadib meeshaas ayaa ku dhufanaysaa. koodka markaasaan ugu dhufatid kuu soo baxo, lama rabo noocan hadda 100,000 raali ahada qof ayaa soo wacaya. noocan hadda kugu qoran meesha looma baahno oo sababtoo ah adiga ayaa la rabaa in aad account gooniya samaysato. qaybta blueska ay ku qoran tahay ama pluska ayaad ku dhufanaysaa. labadan doorasho midkood uu ku siinaa marka. Open a demo account ama log into an existing account. qaybta labaad waa account real ah. anaga hadda uma baahan real maadaama qofka suuqa markaasi uu soo galayo uu u baahan yahay in uu furto account demo ah. waxaad tegaysaa qaybta koowaad ay ku qoran tahay open a demo account. click si qaybtaasi ku dhufo. waxaad raadinaysaa marka brokerada suuqa looga ganacsado waa ay badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. mid walba iyo systemkiisa gooniga ah ayuu ku shaqeeyaa. isla markaasi midka adiga aad ku qanacsan tahay aad isleedahay brokerkan ayaa aniga i cajabiye ayaad isticmaali kartaa. hadduu ilaahay yidhahdana casharada dambe noo soo socda waxaan uga sheekeyn doonaa sababaha lagu xusho brokerada iyo maxaa lagaaga baahan yahay in aad ka fiiriso, taasi oo aan gadaal dambe ka ogaan doono. laakiin maadaama hadda ay tahay account dema ah, waxaan isaga qoraynaa tusaale Axi Traders TRA. labadan nooc ayaa kuu soo baxaysa. nooca koowaad ee US03 dooro, qaab deema ahaan ugu dhufo marka. meeshaan uu kuu soo saaraa. marka saan ay kuu soo baxdo waxaa lagaaga baahan yahay magacaaga, telephone numberkaaga, emailka iyo nooca akoonka iyo leverageka aad rabtid iyo lacagta depositka aad u baahan tahay in uu qaab deposit ahaan uu kuu siiyo. good. qaybtan kore magaca markaa imaatid waxaa ku qoraysaa magaca alla markaas magacii adiga aad rabtid. anigoo kale Yasin Cabdiraxmaan aan ku qoro tusaale ahaan. Yasin Cabdiraxmaan. okay, hoos ayaad usoo degaysaa. telephone number ayuu u baahan yahay. good. numberka markaasaas ugu qorto waxa uu sidoo kaleeto u baahan yahay email oo ah wixii markaas akoonka ku isticmaali lahayd. tusaale hadda aan soo qaato emailkayga ayaan halkaasi geliyey. sidoo kale marka waa muhiim meeshan in aad si fiican isha ugu hayso. qaybtan ay ku qoran tahay account tab ay ku qoran tahay waa muhiim. si aad u doorato marka ku dhufo meeshaasi hal mar waxaa kuu soo baxaya akoonkaaga lacagta adiga markaasi aad rabtid marka. haddii aad rabtid dollar, haddii aad rabtid euro, haddii aad rabtid waddan alla waddankii markaasi aad ka tirsan tahay lacagta ay isticmaalaan si aad ugu trade garaysid. maadaama anaga euro aan joogno waxaan dooranaynaa qaybtaasi eurada. okay, leverageka ayaa kuu soo haray. leverageka waxa uuna siiyey ilaa adiga 5 nooc oo kala duwan oo nooca koowaad oo ah 1 to 100, 1 to 200 iyo 1 to 400 iyo 1 to 50 iyo 1 to 1. mar walba waa inuu leveragekaaga weyn yahay fiican si difaacaaga uu u adkaado ciyaartaana aa ugu sii nagaato. qaybta 1 to 400 ayaan dooranaynaa. lacagta uuna siiyey limitka halkan ayaan ka bedeli karnaa oo uma baahnin limit aad u badan. waxaan u baahannahay limit yar oo aan markaasi ku tababarano si aan uga qaadano, uga shidaal qaadano xaaladda markaasi aan ku sugannahay ama aan u ogaan karno. waxaan dooranaynaa 3,000 oo euro oo deema ah. intaas markaa kusoo buuxisid marka ee magacaaga, telephone numberkaaga, emailkaaga, akoonka nooca ama lacagta akoonkaasi uu noqon doono, waxaa lagaaga baahan yahay in aad suubiso create account oo ah ii abuur akoon cusub. sidaas ayuu kugu soo muuqan doonaa marka. good. dhan ayaad leedahay oo waan dhamaystiray. kadib waxaa kuu soo bixi doona lacagihii ay halkan kaaga soo muuqan doonaa. waxaad samayn kartaa marka lacagaha qaar ayaa kaa maqnaan kara oo waxaad u baahan kartaa sida tusaale ahaan euro iyo CHF ama euro iyo lacagaha kale loo isticmaalo ama dollarka ama lacag lacagaha kamid ayaad ka maqnaan karta. si marka aad u ogaatid lacagta kaa maqan iyo lacagaha aad u baahan tahay, meeshaasi bluesta ay ku qoran tahay qaybta kore ku dhufa hal mar. 2 nooc oo forex ah, nooc standardka ah iyo nooc pro ah ayaa kuu soo bixi doona. qaybta kore tag, lacagihii oo dhan halkan ayay ku yaalaan marka. sida hadda halkan ugu jeedaan mid walba marka ku dhufo click si marka ayaga ayaa si automatic ugu soo dirsamay. click markaad siiso ilaa aad ka dhamayso lacagahoo dhan. kadib qaybta labaad FX broker imo, FX Pro aan dhahay imo.
isla sidoo kale ayaad samaynaysaa oo lacagaha oo dhan waad ku soo darsan kartaa laakiin waxaa muhiim ah qofka in uu fahmo oo keliya ayaan rabnaa sababtoo ah lacagaha adiga markaasi aad ku tiradgaraynayso inay meesha ku yartaha fiican oo lacaga yar ay ku yaalaan si aad u fahanto oo hadhowna aadan ugu wareegin marka intaan soo samaysid marka ee qaabkan aad u samaysid waxaa ku diyaarsan akoonkaagii oo lacagihii halkan ayay kuugu jiraan oo sidan ayay kuugu soo muuqan doonaan lacagaha marka hortaada ka muuqda waa kuwana maadaama hadda nasiib daro aan waxba trade aan isku dayi karin sababtoo ah waa weekend ama waa isbuuc maalmihiisa nasashada suuq furanna ma lahan haddii aan tusaale ahaan xataa isku dayo in aan euro iyo ku dhufto lacagta dollarka oo aan dhaho lacagtan ayaan rabaa inaan galo kadib sel iska dhe ama buy labada midkood waxa uu ii soo qori doonaa sidaad halkan ka arki doontaan iga diidan yahay waa kaasa market close la dhaha suuqii ayaa xiran oo hadda wax trade aba yaraatay aad suubin kartid ma lahan taas micnaha tusaale ayay ahayd laakiin marka aan rabo inaan trade galo marka aan rabo inaan trade galo lacagihii ayaan ku dhufanaa marka hore qaybtan inta edhig lacagihii markaasaan uga dhufto lacag alla lacagtii aan raba ayaan kortaga hal mar saas ayaan farta ugu qabanaa kadib waxaa ii soo baxaayo new order oo ah boos cusub furo iyo open chart oo ah fiiri chartinka ama lacagta xaaladda ay ku sugan tahay si aa u aragtid sidan ayuu kugu soo muuqan doonaa good meeshani noo celiya tusaale marka lacagta sida aan hore usoo sheegnayba laba nooc oo keliya ayaa lacagta loo raacaa oo ah sell iyo buy new order markaa ku dhufatid labadan doorasho midkood ayaa kuu soo baxaya qaybta hoose si fiican u fiiri waxaa ku qoran waa sell by market ama buy by market labadan nooc ahaynoo kaleeto oo lacagtan suuqa looga ganacsado ma jirto aan ka ahayn noocyo pending order loo yaqaano oo ah kuwaasi meel ama suuq aan la gaarin ayaad rabtaa inaad kasii ganacsato taasna hadduu ilaahay yiraahdo casharada dambe ee noo soo socda ayaan ku baran doonaa hadduu allah awoodi la yiraahdo okay akoonkii waa soo degsanay lacagihii way noo yaalaan sida inta ugu tiragereynaysid waa aragtay qaybtan labaad ee ku xigto ee xariijimaha waa chartskii ama candle stickyadii sidii ay kugu soo muuqan lahaayeen xaaladda markaasi suuqa uu ku sugan yahay qaybtan labaad ee fallaarta ah waxaad ka arkaysaa marka uu kuu furan yahay trading ama boos cusub uu kuu furan yahay lacagaha kuu furan iyo xaaladda markaasi akoonkaaga uu ku sugan yahay ayaa qaybtan kaaga soo muuqan doonta hadduu ilaah yiraahdo sidoo kale qaybta ku xigtaa waxaa halkan kaaga soo muuqan doona iyadana haddii aad even trade aad gashay ama boos cusub aad soo furatay oo aad ku faa'iiday ama aad ku khasaartay xaaladii markaasi kaaga soo baxday tradeadii aad gashay halkan ayay kaaga soo muuqan doonaan ayagana sidoo kaleeto oo la rabo inaad isha ku haysid sidoo kale waxaa suubi kartaa qaybtaasi kore ee gacantaada bidix boorsada ama shandada camal ayaad ku dhufan kartaa waxaad fiirin kartaa isbuucii ugu dambeeyey bishii ugu dambeysay saddexdii bil ugu dambeysay ama customer period oo ah waqti go'an taariikh hebel ama maalin hebel ama sidoo kaleeto isbuuc hebel bisha laga bilaabo waqtigaas ilaa waqtigaas xaaladda akoonkeyga sidee ayay ahayd ayaad sidoo kaleeto ku ogaan kartaa qaybtana ku soo hartay waa just macluumaad iyo information ama newsyo ku saabsan lacagaha iyo bangiyada oo aad ka daalacan karto qaybtan hortaada ka muuqata good intaasi haddii aan isla fahnay akoonkiina aan soo degsanay lacagihiina aa aragtay sida loogu darsado sida loo trade garayna aan soo sheegnay inaad lacagta hal mar keliya saas aad dhahdo farta ku qabato kadibna ay kuu soo baxda new order adigoo ku dhufanaya meelaha loogu talagalay marka take profitka iyo loogu talagalay stop losska waa labada meel ee hortaada ka muuqata nooca koowaad waa kana oo meeshan guduudan waa meesha loogu talagalay in aad ku qorto stop losskaaga oo aan trading view uga soo sheekeynay lacagta markii aad rabtid stop loss iyo take profit inaad u samaysatid labada meel ee loogu talagalay waa meeshan guduudan oo la gelinayo stop losska iyo qaybtan cagaarka ah oo la gelinayo ayadana sidoo kaleeto take profitka waxaa kuu soo hartay qaybtan kore marka ay ku qoran tahay 1.eber waa lot size-ka ama lacagtaasi aad rabtid inaad ka trade garayso ilaa intee ayaad rabtaa in aad u raacdo dhaqaaqiiba
hadda lot size ka hortaada ka muuqda waa lot size 1.00 oo ah dhaqaaqii suuqaasi ay dhaqaaqdo waxaan u raacay lacag $10 ah in aad ay u badan tahay qofka markuu cusub yahayna waxaa fiican in uu akoonkiisa xaaladda uu ku sugan yahay uu ogaado just meeshaas ka bedel halka oo eber ka dhig sidoo kale waxaad ku qori kartaa tira alla tiradii aad rabto 5 hal ku qori kartaa waxaad ku qori kartaa eber hal ayaad ka dhigi kartaa oo ah 10 senti waa meesha ugu yar ee suuqa laga soo raaca qaybtaas korona waxaa laga bedelaa lot size-ka suuqa markaasi aad rabto inaad ka dhigato waxaa kuu soo haray nooc kaleeto oo asagana loo yaqaano qaybta kore haddii aad fiiriso eberka ka koreeyo waa market execution market executionkaas waxaa ku jiro pending orderadii loogu talagalay qofka markii uu rabo suuqan in uu ka trade gareeyo ama tradeyo aan la gaarin si uu uga ganacsado waxaad tegaysaa qaybtaasi market execution ku dhufo waxaa kuu soo baxaya buy limit sell limit buy stop iyo sidoo kaleeto sell stop iyadan insha allah hadduu ilaah yiraahdo cashir ayaan ka diyaarin doonaa oo ka hadlayo goorma ayaa buy limit la dhahaa goorma ayaa sell limit loo raacaa suuqa iyo sidoo kaleeto buy stop iyo sell stop waxaan rajeynaa inaad fahanteen insha allah hadduu ilaah yiraahdo waana cashir aad u fudud aan dhib badneen lana rabo qofka in uu isku day iyo uu la yimaado si uu xaaladda suuqa ula socdo waxaan rajeynaa inaad fahanteen hadduu allah awoodda la yiraahdo insha allah inta aan cashirka ku xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaba haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir halbeeg SOS Traders Empire oo ah xarun laga barto suuqan sarifka lacagaha qalaad oo ay kugu diyaarsan yihiin macallimiin kaa haqabtiri doona barashada suuqan sarifka lacagaha qalaad hadduu allah awoodi la yiraahdo kusoo biir janalkeena qaybta hoose adigoo subscribe ama rukumanaya si aad u hesho casharada soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo waa anigoo ah yaasiin cabdiraxmaan nabadii naxariis korkiina ha ahaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh